السلام عليكم. maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bisha 12aad sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ay weheliso marwada kubadda ee qaranka Marwo Zainab Cabdi Macallin iyo wafdi ballaaran oo weheliya ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu halkan u yimi si uu uga qayb galo meertada saddexaad ee shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika. waxa uu sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay magaalada Istanbul uu shirdoceed la qaadan doona dhigiisa madaxweynaha dalka Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan. waxa sidoo kale wafdiga ballaaran ee madaxweynaha la socda kamid ah wasiiro kuwaas oo qorsheynaya iyaguna inay kulamo duceedyo ay la qaataan wasiirada dhigooda ee dalkan Turkiga. madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdiga ballaaran ee weheliya ka qayb galaya shirkan iskaashiga ah ee u dhaxeeya Turkiga iyo Afrika waxay ku soo bandhigi doonaan mowqifka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka iyo qorshayaasha lagu horumarin karo laguna dardargelin karo iskaashiga dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Turkiga kaas oo runtii meel wanaagsan maraya aadna u miro dhalay. waxaa la qorsheynayaa sidii la isaga sii kaashan lahaa dhinaca amniga iyo maalgashiga dhinacyada kala duwan fursadaha ganacsi ee muuqda. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdiga weheliya waxaa garoonka diyaaradaha Istanbul Airport si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin heer sare ah oo ka socda dawladda aan walaalaha nahay ee Turkiga iyo mas'uuliyiin kala duwan wasiiro dawladda federaalka ah iyo safiirkeena inoo fadhiya dalka Turkiga mudane Jaamac Aydid. waad mahadsantihiin.